ma jirto qaacido dhab ah oo lagu qiimeeyo quruxda dumarka balse waxay leedahay bulsho walba dhaqan iyo caadooyin u gaar ah oo lagu qiimeeyo quruxda dumarka walow quruxda raggii hore Soomaalidu ay ku qiimeyn jireen 28 sifo gabadha laga helo inay tahay wax kale inta kaliya kuma eka quruxda dumarka waxaa jira dhaqamo shisheeye oo iyana si gaar u qiimeeyo quruxda dumarka dul ahaan quruxda dumarka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood qurux duleed oo ah inta sare dhaayahaynu arkaan qurux gudeed oo ah inta qarsoon shakhsiyadda qofka dabciga diinta kalsoonida garashada xishoodka iyo qaar kale oo badan da ahaan dumarka waxay ugu qurux badan yihiin 25 jirka ilaa iyo 30 jirka haddaba haddaad isku aragtay sifooyinkan u mahadnaq eebba waa kuwan 28 sifo ee gabadha lagu tilmaamo quruxdeeda afar waa inay u dheer tahay labada gacmood timaha iyo qoorta yaa salaam iyo wad sheekada afar waa inay dhumac u leedahay labada kub iyo labada cudud wax kale afar waa inay u caddahay labada indhood iyo afka labadiisa lakab ee qiyaasay afar waa inay u madowdahay labada suniyood iyo labada indhood wiilashooda waa sidaad rabtay afar waa inay deeb u leedahay labada dibnood iyo labada mudane sida naaska ayayay jukalaatina waa inay u dhuuban tahay qoorta iyo dhexda jagan ku ahay labana waa inay u shushuban tahay labada dhaban alla yaa xalaal kugu dhunkada gabadhiye halna waa inay u qorqoran tahay cajiib maahan waa cajaa'ib labana waa inay dhegta maqalkoodu jeclaystaan waan ku wataa 28 sifood oo aynu soo tilmaanay waxaa ka muhiimsan dabciga iyo garashada hadday siiro ka tahay astaghfirullah xaal qaado quruxay